السلام عليكم. ninku wuxuu leeyahay calaamado badan oo muujinaya jaceylku uu qabo gaclisadiisa, waxaana suurtagal ah in si fudud lagu ogaado. haddaba ila dhegaysto qaar ka mid ah calaamadahaas. inuu ninka ahaado mid kala garta xaaladda ay gaclisadiisa ku sugan tahay, hadday faraxsan tahay ama haddii ay murugaysan tahay. weliba wuxuu ka ogaanayaa habdhaqankeeda. taasi waxay ka dhigaysaa inuu tixgeliyo murugadeeda oo uu noqdo kan ugu naxariista badan iyo midka sida naxariista badan ula dhaqma iyada. sidoo kale had iyo jeer niyadda ayuu u dejiyaa. ninka sida dhabta u jecel gabadha markasta wuxuu jecel yahay la hadalkeeda, wada sheekaysigeeda, markasta wanaageeda iyo dabeecaddeeda wanaagsan ayuu ka sheekeeyaa. kamana daalo kamana caajiso ammaanteeda iyo inuu u sheego guulaheeda. si buuxda ayuu u daryeelaa gaclisadiisa. wuxuu daneeyaa dhammaan waxyaabaha ka farxiya gabadha uu jecel yahay, ha ahaato mid maadi ah, mid nafsaani ah ama mid akhlaaqdeedaba. wuxuuna jecel yahay inuu arko iyada oo faraxsan mar walba, maadaama uu muujiyo xiisaha uu u qabo iyada iyo wax kasta oo ku xeeran. tanina waa calaamad kale oo muujinaysa jaceylkuu iyada u qabo. ninka sida dhabta u jecel gaclisadiisa kama fogaan karo gabadha uu jecel yahay marka ay jirto daruufo ka hor istaagaya inuu la kulmo. wuxuuna dareemaa hilow, wuxuuna sameeyaa wax walbo awooddiisa ah si uu u gaaro. wakhti walba wuxuu u dirayaa fariin qoraal ah si uu ula sii xiriiro. sidoo kale wuxuu barayaa qoyskiisa iyo dadka muhiim ku ah noloshiisa sida waalidkiisa, walaalihiisa iyo asxaabtiisa ugu fiican. waana mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee tilmaamaya dareenka dhabta ee jaceylku u qabo. wuxuuna ka dalbanayaa inuu isagana barto qoyskeeda iyo dadka muhiim ku ah nolosheeda. tani waxay muujinaysaa inuusan rabin inuu ka taga iyada.